Assalaamu calaykum. Waxaan u wanaagsan meel walba adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono maxay tahay sababta uu Paul Pogba marada ugu soo duubto hal garab ama hal gacan ugu soo xirta marada dheer oo aan inta badan ku aragno muddooyinkii ugu dambeeyay. xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka qaranka Faransiiska ee Paul Pogba waxa uu caan ku yahay fashionka iyo naqshadaha kala gedisan ee uu timihiisa u soo habaysto ama u soo xiirto. Mar uu timaha soo casaysto, mar uu blue ka soo dhigto, iyo mar uu magacyo kala gedisan ku soo qorto. Laakiin mawduuceena maanta taawa uu ka gedisan yahay waxaana uu yahay sababta uu isleef ama mara dheer gacanta ugu soo xirto, mar gacanta midig, marna gacanta bidix. maxay tahay style-kaas cusub ee uu la yimid Paul Pogba? Pogba waa xidig baraha bulshada aad loogu hadal hayo mar walba oo uu timaha soo hagaajisto ama la arko isagoo xarakaad cajiib ah sameynaya, haddii ay ahaan lahayd isagoo dance ama qoobka ciyaar dheelaya, isagoo heesaya iyo wixii la mida. waxaana akhbaartiisa lagu soo qaataa telefishinada iyo jaraa'idada caalamka. sanadkii 2020 ayay ahayd markii la arkay Paul Pogba oo garabka ku soo xirtay ama hal gacan ay ugu xiran tahay marada dheer ee loo yaqaan basketball sleeve. waxaan aragnay Pogba oo hal garab mara dheer soo gashtay, garabka kalena uu bannaan yahay. durbadiiba waa laga yaabaa inaad garatay in maradaasi yar ama bahashaasi ay tahay midda ay caanka ku yihiin ragga ciyaara kubadda kolayga loona yaqaano basketball sleeve. waxayna dadku isla dhex marayeen sababta uu Paul Pogba sidaasi u yeelay. ma dhaawac baa ku yaalla, ma style cusub baa, mise Shaabad ayuu ku qarinayaa. xaqiiqadii maradan gacanta igu xiran waa mid sida bantaajada oo kale ah, taas oo loo isticmaalo in ay xanuunka baabi'iso isla markaana ka difaacda dhaawaca. markii horena waxay ku bilaabatay xanuun aan ka dareemay xusulka midig, kadibna isla dhibaatadaas oo kale ayaa misana iga qabatay xusulka bidix, isna waan ku xirtay. ujeeddadaan u xirtay waxay ahayd inaan xusulkayga xoogaa diirimaad ah siiyo halkii aan ku xiran lahaa bantaajada, ayuu yidhi Paul Pogba oo u caddeeyay inta ku wareersan arrintan maruu u waramayay website-ka kooxda Manchester United ee manutd.com. sida caadiga ah maradani ku duuban xusulka waxaa loo sameeyay inay caawiso murqaha isla markaana ay hoos u dhigto halista bararka. Pogba waxa uu la qabsaday halka gacan ee la soo duubanayo ilaa uu gaaray inuu iska kari waayo oo ay u noqoto mid ka mid ah dharka uu xirto marka uu ciyaarayo, iyadoo haatan aad loola xiriirinayo ilaa ayba noqotay astaantiisa ganacsiga ee lagu garto markii isaga la arko. Pogba ma ahan ciyaaryahanka qura ee basketball sleeve-ka soo xirta. waxaa jira ciyaartooy badan oo ay dhaqaatiirtu u soo qoreen inay xirtaan kadib markii ay dhaawacyo gacanta ahi soo gaareen. laakiin waxaa jira rag dhaawac ka soo gaaray gacanta oo bantaajadii looga duubay markii ay raysteen xitaa aan iska furin, sida Karim Benzema iyo Luis Suarez, ilaa ay bantaajadaasi yar u noqotay calaamadooda gaarka ah ee lagu garto. dhanka kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ee Paul Pogba waxa uu aad u xiiseeyaa kubadda kolayga, isagoo sanad waliba mar booqasho ku taga waddanka Mareykanka si uu u soo daawado kulan ciyaareed kubadda kolayga ah, isla markaana uu ula soo kulmo xidigaha uu xiiseeyay ee ka dheela NBA-da Mareykanka. dhammaadkii ciyaarihii Euro 2016 waxaa la daawaday muuqaal video ah oo ay labada ciyaartooy ee Paul Pogba iyo Romelu Lukaku ay wada ciyaarayaan kulan kubadda kolayga ah 1-on-1. waxaana Pogba uu mar waliba sameeyaa waxyaabaha uu aadka u xiiseeyo ee durbadiiba noqda kuwa lagu sheekaysto, warbaahintuna ay hadal hayso. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintii aan kaga hadlaynay halka gacan ee u duuban Paul Pogba iyo sababta ku kaliftay in uu hal gacan soo xirto kuna xirto marada dheer ee loo yaqaan basketball sleeve. intaan mar kale idiin soo gudbin doono barnaamij kale oo anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.